wafdigan oo ka koobnaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo hogaaminaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo oo ah xarunta labaad ee doorashada Galmudug lagu qabanayo. xubnaha guddiga heer dowlad goboleed oo Galmudug dib ugu soo laabtay waxaa ka mid ahaa xogayaha guddiga doorashooyinka Maxamed Qaasin, Maxamed Soomaali iyo Axmed Bukhari, iyadoona ay wehliyeen xubno ka tirsan guddiga heer federaal. wafdigan ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, wasiirka hore ee amniga Galmudug, maamulka gobolka kan degmada Gaalkacyo ee qaybaha kala duwan ee bulshada, gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal oo Gaalkacyo ku soo dhaweeyay. wafdigan ayaa guddiga uga warbixiyay sida magaalada Gaalkacyo ay isugu diyaarisay in lagu qabto doorashada heer federaal oo ay goobta labaad ka tahay Galmudug, ayadoo u diyaarsan in lagu qabto degmada Gaalkacyo odayaashii dhaqanka, saraakiishii gobolkii, degmadii, dhalinyaradii, ururadii haweenka dhammaan waxay maanta u diyaarsan yihiin inay soo dhaweeyaan. ku soo dhawaada degmada Gaalkacyo, ku soo dhawaada gacmo furan. si walba ay taana waxaan u diyaarsannahay aragtida aad wadaan iyo talada aad noo wadaan maanta inaanu ka dhabayno Gaalkacyo inay maanta qaadato doorkeeda ku aadan doorashada haddii Ilaahay idma ka dhici doonta 12 kursi ee gobolka Mudug. haddaan anoo ku hadlayo afka gobolka Mudug waxaan diyaar u nahay soo dhaweyntiina, waxaan diyaar u nahay inaan idin la shaqeyno, waxaan diyaar u nahay wax kasta oo jadwalkiina ina fulino. waayo mas'uuliyaddu idinka saaran tahay, annaga waxaan fududayaashay baan. wafdiga oo garoonka diyaaradaha saxaafadda kula hadlay gaar ahaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Maxamed Daahir Guuleed iyo afayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Safiina ayaa sheegay in Gaalkacyo ay u yimaadeen dardargelinta doorashada iyo u diyaargaroobidda goobaha doorashada Galmudug. sidoo kalena wafdiga ayaa sheegay inay la kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Gaalkacyo. socodkeena maanta wuxuu shiran yahay. waxaan ka soo laabannay diyaargarayntii howlgalka doorashada hoose, waxaan soo dhammaynay diyaargarowgii howlgalka aqalka hoose. waxaan u nimid Gaalkacyo inaan dhammaystirno diyaargarowgii doorashada aqalka hoose ee Galmudug. waxaana maalmaha soo socdana waa idinla joogi doonnaa. berri waxaa la soo gabagabay doonaa guddigii amniga ee tababar lagu qabtay magaaladan oo aan soo gabagabayn doonno. maalmaha ku xigta waxaan la kulmi doonnaa odayaasha gobolka, maamulka iyo degmada, waxaana sii ambaqaadi doonaa si doorashadu bilaaban lahayn. tareenkii doorashada dalku uu dhaqaaqay, maalinba boosteejo iyo maalinba madaar ayuu soo gaadhayaa. xildhibaanadiisiina waa ka guranaya haddii Ilaahay yidhaahdo caasimadda la geenayo. runtii 12 kursi ee magaalada Gaalkacyo yaalla ama gobolka Mudug yaalla, waxaan u nimi inaannu dardar gelino haddii Ilaahay yidhaahdo. guddiga doorashooyinka heer federaal qalbigiisii iyo wadnihiisii iyo indhihiisiiba maanta waxay eegayaan gobolkan Mudug haddii Ilaahay yidhaahdo. waxaa la eegayaa siday u soo xushaan aqoon-yahanno ama waaya arag ku matala kuraasta dalka haddii Ilaahay yidhaahdo. 12kiina kursi idinkaa kala dooranaya, annagu idin kala doori mayno. annagu dhex baannu ka nahay, cadaalad baannu ka nahay. Saadax Saciid Nuur, Radio TV Galmudug, Gaalkacyo.